khayraadka dabiiciga waa hanti alla ku manaysto ciduu doono shidaalkuna waa qayb ka mid ah hantidaasi oo alla ku manaysto aadamihiisa dalalka Sacuudiga Norway Canada iyo dalal kale oo badan ayaa ah dalal si weyn uga faa'iideystay soo saaridda shidaalka haddaba barnaamijkeena maanta waxaa si weyn ugu faaqidi doonaa shidaalka la sheego in Soomaaliya ku jira waxa ka jira iyo suurtagalnimada in Soomaaliya ka mid noqoto dalalka shidaalka soo saarta baaritaano badan oo la sameeyay iyo warbixino ay shirkadaha caalamiga soo bandhigeen ayaa sheegaya in Soomaaliya ay ku jirto 110 bilyan oo fuusto oo shidaal ah bal maxaa arrinkaasi ka runa ma jiraan ceelal la qoday oo laga helay shidaal waa kuwa gobolada ugu badan ee looga shaqeeyay shidaalka ma ogtahay inuu jiro laba ceel oo la qoday oo la hubiyay in 100% shidaal aad u badan ku jiro magaalooyinka ku yaalaan waa su'aalo aad dhamaantood jawaabahooda aad barnaamijkeena kaga bogan doontaan waxa idin soo diyaariyay halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdirasaaq Gumeysatiida haddaba aan ku bilaabay marka hore su'aal ay dad badan isweydiiyaan oo ah Soomaaliya shidaal ma ku jira ama kuma jiro waxa inooga jawaabaya Abukar Xaaji Maxamed Mire oo ah qabiir ka tirsanaa xafiiskii xogta isgaarsiinta ee shirkado badan oo shidaalka ka saamiya dhulkeena su'aashu waxa weeye wadankeena batrool ma ku jira mise kuma jiro wuu ku jira waaya wuu ku badan yahay haddaba 1970 ilaa 1980 ayaa dalka shirkado badan waxay ka sameeyeen sahmin kala duwan dawladii kacaanka ee waqtigaasi jirtay ayaa heshiis shidaal qodisa iyo sahmin bal la gashay shirkadda Shell oo Holland laga lahaa oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka qoda 1978 bishii February ayay shirkadaasi shidaal ka heshay Soomaaliya gaar ahaan Baardheere iyadoo bilowday qodida ceelkaasi la helay oo ahayd in la qodo 4000 oo mitir haddaba wixii la qodaba ceelkaasi 900 oo mitir markii dhulka hoos loo jiray waxa soo burqaday gaaska dabiiciga bal maxaa kadib dhacay waa kan Abukar Xaaji Maxamed Mire oo inoo sharaxaya waqtigaasina goobjoog ahaa 900 oo mitir markii aanu maraynay gaas baan ku dhex dhacnay waay dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xiro gaasta waayo kambanigu gaas muu doonayna wuxuu doonayay petrol halkii aad petrolka uga gali lahaydeen baa gaas baan gaas u galay ayaad gaas u gashay ha petrolkii ma dhawa gaastu aan Abukar ma tan la shitaaye wax lagu karsan natural gas ha naaska waa gaaska dabiiciga markii la xiray gaaskii soo burqaday waxa dib loo bilaabay qodida ceelka wixii la qodaba markay harsaneed kaliya 45 mitir oo xitaa la diyaariyay bamkii lagu qorxin lahaa shidaalka nasiib darro waxa dhacday in wasiirkii badroolka ee waqtigaasi uu faragelidii musuqmaasuq ku sameeyo shirkadii shidaalka qodaysay kadib maxaa dhacay balaan idin kala baxo Abukar Xaaji oo Cali Xaraare arintaas uga sheekeynaya 3920 markaan 55 markaan maraynay mitir oo 45 mitir noo harsan tahay yaa waxa isku dhacay wasiirka macalinta iyo biyaha Soomaaliya ee xilliga iyo wakiilkii u joogay kambaniga Shell maxay isku dhacay kulliba waxaan dawladdu la ogeyn wasiirka waay ayuu ula tagay shirkadda waay shirkaduna waxay shirkad dawladeed ma ahayn kambani shirkadaha dawladahu leeyihiin waa conservative oo qodista waxaan ahayn kuma soo talagalaan ceelka inay ku baxaan marka halkaas ka bariiqatay warkaagu suu taariikh ugu noqdo dadka Soomaaliyeed ee jiilasha soo socda Abukar naam marka cadeysid maadaama ay tahay waqti la soo dhaafay naam taariikhdu waa lama horaan waxay noqon doontaa wax meel yaalo oo dib loo eego naam wasiirka waxay joogtaa xafiiska xogta iyo isgaarsiinta adigu waa gartay wasiirka iyo maxay isku qabteen kambanigu waxay isku qabteen commission buu weydiistay kambaniga waaya haddii kale operation ku socon maayo ku yiri ama waa in lacag la siiyaa ama waa in lacag shidaalka la soo saaro ama waa in lacag la siiyaa waaya haddii kale operation ka ka wadaan waad joojinaysaa waaya dabeedna maxay yeelan gabadhii waxay yiraahdeen anagu kuma soo talagelin kambanigan waxa iska leh dawladda fan ma bixino iyo lacag laaluusha eelka wixii ku baxa
yaa anagu estimationkee waxa budgetka iyagu waa wixii ceelka ku bixi lahaa marka batroolkii dhammaa ee 4,000 ee mitir la soconayay waxaa idinka dhiman 45 mitir 45 mitir weliba inuu nagu soo boqdo aad bay halis u tahay marka iyada sababtu waxa weeye waxaa yimi nimanka qarxiya ceelasha batroolka marka la qodo kambaniga qodaa marka uu meel marayo waxaa yimaada kuwii qarxinaya marka la ogaado in ay 100% uu batrool ku jiro waxaa yimaada dad la yiraahdo fellow batrool iyaga ceelka markaa qarxiya iyaga sheega inta uu maalinta soo saarayo batroolku nooca uu yahay inta sanadood ee uu productionka intaa la eg samayn karayo nimanka sheega oo fellow batrool loo oran jiray way keensadeen qalabkoodii oo qaali ah oo habeen hadday u hoydaan meesha aan kambaniyadu xamilin way yimaadeen inay ceelka qarxiyaan oo production la bilaabo nasiib darro joojiyana lagu yiri amar baa lagu sii halkaa markay maraysay Holland waxay kala soo hadlay nin madax ah oo executive secretary-ga Shell Holland wuxuu yiri waxaad ku tiraahdaa ninka company manka ay meesha jooga labada telefoon waxa horeeyay kanika madaxda ee Holland iga soo diray ayaa soo horeeyay wuxuu yiri waxaad ku tiraahdaa ceelka waxa loo bixinayaa Vortex 1 in Africa baadheer 1 lama yiraahdo Vortex 1 baa la yiraahdaa Vortex 1 sida aan taariikhda ku hayay wuxuu ku yaalay badda North Sea ee Scotland waa ceel aad u badiya oo batroolkiisu aad u badan yahay marka Vortex 1 baa lagu mataaneeyay oo Scottish ay leeyihiin marka taa waxa loola jeedaa sida ceelka Vortex 1 ee Scotland ka dhisan uu shidaalka u soo burqado shidaalka soo badan yahay ayaa kan baar dheeran u badan yahay waaye ka soco markii shirkadu ka baxday dalka dawladdu waxay heshay xogtii wasiirka iyo musuqii uu ku dhaqaaqay kadibna waa la eriyay haddaba ceelkaasi baar dheere ugu dambeyn rajadiisa in shidaal ku jirto intee la ekeed Abukar Xaaji baa mar kale inoo sharxaya rajadiisuna waxay ahayd 100% ayay ahayd intaa kadib waxaa jiray shirkado kale oo dalka ka qoda ceelal qaarkoodna la hubiyay in 100% shidaal ceegago waa kan Abukar oo mar kale inoo sharxaya percentage-ka am celcelis ahaan inta ceelalkaasi looga shaqeeyay shidaal Soomaaliya waxa laga qoday 5 ceel waxa ka horeeyay 2 ceel oo anigu aanan arkin oo joogin ceelna Kismaayo area laga qoday 72 meelaha 73 ceelna gas buu ahaayo afgooyaa laga qoday labada ceel ma aan ogeyn laakiin 5 kale waan ogaa ii sheeg hadda 5 kale waa baar dheere ceelka baar dheere hol kariswan oo garoowe 16 kilomitir jirta soo saddex ceelkii Luhaye laga qodayay ee ay Chevron qodaysay iyo ceelkii aan Mudul Baraawe ka qodnay shataba ceelka Luhaye runtii wax badan ma aanan joogin waayo dagaal baa markiiba nagu qabsaday markii waa nalaga qaxiyay aniga iyo gaaladii laakiin rajadiisaan ogaa oo waxay ahayd 95% 95% Kaluhaya waate ceelka hol kuwetsan male oo u buuxa gaaladu horta waxay samaysaa waa dafil mir marka hol waa tif weeye ceelka garoowe wax yar markii aanu qodnay oo 2500 feet oo wax yar oo aan weligayba arkin ceel saasa waxaan galay saliid yaacday oo dhimatay ceelka Mudul Baraawe daray hol buuxa san kuma ana arag saliideed shirkadihii kala duwanaa ee sahminaya ceelashaasi ceel walba ay hubiyeen isla markaana shidaal ku jiro waxay ka taagan bir lagu garto waxayna hawshooda dib u bilaaban doonaan markii la helo dawlad Soomaaliyeed oo hanata dhulkeeda baddeeda iyo hawadeedaba shirkaduhuna waa kuwa wali heshiis kula jira dalka
haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaalka mid ka mid a ceelashaasi la hubo in 100% shidaal cegago oo ay bir ka taagtay shirkadii sahmise oo iyadu rajaynaysa in markuu dalku hagaago dib hooshooda u bilaabato. wuxuuna ku yaalaa degmada Holhol oo dhacda waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan Qaatumo. waxa ugu dambeyn ilaa hadda la aaminsan yahay in ceelka Baardheere yahay kan ugu shidaalka badan Soomaaliya iyo qaaradda Afrikaba inta ilaa hadda la baaray. waxaa dhici karta in la helo kuwa kale oo aad u badan. qabiiro si hordhaca u sheegay kheyraadka shidaalka Soomaaliya ayaa aaminsan inuu yahay 110 bilyan oo fuusta taasoo u dhiganta ama la micno ah in qof walba oo Soomaaliyeed ka heli karo sanadkii lacag dhan $100,000. kheyraadka bariga gaar ahaan shidaalka ayay intaasi ahayd. waxaan barnaamijkan mid ka xiga uga hadli doonaa kheyraadka badda iyo baaritaanadii la sameeyay. waxaa idinka codsanayaa in barnaamijkan aad sii faafisaan ama aad sheergaraysaan si dadkeena iyo dawladeennaba kheyraadkan uga faa'iideystaan. waxaa idin soo saaray oo halkan idinkala socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Gumaysi Diida. waxaan idin leeyahay dalkeenu cadawga ku xirooba. nabad diino.